bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka National TV aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo ka been sheegay dhismaha ciidanka xooga dalka xilli lagu eedeeyay inuu dhisay ciidamo uu dana gaar ah u adeegsado warbixin arintan ku saabsan ayaad warkan ku daawan doontaan wasiirada gaashaandhiga iyo amniga oo aan ka qayb galin munaasabada xuska 12 Abriil oo ah maalinta ciidanka xooga dalka maxay tahay sababta aysan uga qayb galin warar ayaan kaga hayaa qodobada kale ee wararkeena waxa kamid ah madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor oo fashiliyay xal laga gaari rabay kuraasta la isku haysto ee Koonfur Galbeed xog sir ah ayaa daawan doontaan gudiga fiidna waxa uu war cusub ka soo saaray dhaarinta xildhibaanada cusub ee loo balansan yahay 14 Abriil fariin uu gudiga u diray xildhibaanada labada aqal ayaan warkeena idinku hayaa qodobadaasi kuba kale ayaan faahfaahin doonaa waa talaado 12 Abriil 2022 u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi markale Ramadaan Kariim daawadayaal aan ku bilaabo warkeena maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta wasaaradda gaashaandhiga waxa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay xuska 12 Abriil oo ah markii la aasaasay ciidanka militariga Soomaaliya 62 sano ayaa laga joogaa maanta oo kale markii la aasaasay ciidanka xooga dalka munaasabadaasi mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay waxaase ka maqnaa wasiirada gaashaandhiga iyo amniga oo muhiim u ahaa munaasabadaasi dhinaca kale madaxweynaha mudxeleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu eedeynayaa inuu ka been sheegay dhismaha ciidanka xooga dalka isagoo sidoo kale lagu eedeeyay inuu dhisay 5 sano ee la soo dhaafay ciidamo dana gaara uu ka lahaa warbixintan ayaan ku eegaynaa sida maanta loo xusay 12 Abriil ciidanka xooga dalka ayaa maanta u dabaaldegay xuska 62 sano guurida ka soo wareegatay aasaaskooda oo ku beegan 12 Abriil wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya oo ay ka dhacday munaasabada xuska ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha mudxeleedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan taliyaasha ciidamada gudoomiyaha baarlamaanka duqa Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale waxa hoos u dhacday cabsidii laga qabay in kooxda madaxweyne Farmaajo ay maanta qaadi karaan tallaabo ka baxsan xuska maalinta ciidanka cabsida maalmihii la soo dhaafay taagneyd ma ahayn in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in uu dalka afgembi ku qabsado sababtoo ah dalku waa federaal madaxweyne qaranna ma sameyn karo afgembi military ama inqilaab laakiin cabsida dadka iyo siyaasiyiintu qabaan wuxuu ahaa in kooxda madaxweynuhu qaado qorshe ay ku qasayaan dhameystirka doorashada iyo inay magaalada xaalad cusub ka abuuraan xuska 12 Abriil sanadkan waxay ku soo aaday iyadoo ay si weyn isku khilaafsan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo isku haya arrimaha doorashada ciidanka maanta u dabaaldegay 12 Abriil waxay 27 Diseembar ee sanadkii hore isku dayeen in ay xoog kula wareegaan xafiiska ra'iisul wasaaraha taasi oo si kala fogeysay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble lumisayna kalsoonidii dhixtiilay sidoo kale xuska maalinta ciidanka xooga dalka waxa la qabtay iyadoo wasiirada gaashaandhiga iyo amniga aysan wax talo iyo aragti ah ku lahayn munaasabada mana jiro ciidan ka amar qaata labadan wasiir oo muhiim u ah dalka iyo ciidankaba wasiirka difaaca Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo xilkan loo dhiibay 26 Diseembar ee sanadkii hore ayaa tan iyo markaasi tegin xarunta wasaaradda gaashaandhiga ciidan aan ka amar qaadan wasiiradooda gaashaandhiga iyo amniga ayuu madaxweyne Farmaajo ku faanayaa in uu dhisay 5 sano ee uu xukunka hayay waxa kale oo munaasabada la qabtay iyadoo toddobaadkii hore hay'adda NISA sheegtay in la qorsheeyay dilka madaxda ugu sareysa dalka in madaxweyne Farmaajo ku faano dhisida ciidan qaran oo awood leh al-shabaabna qorsheeyaan dilka madaxda ugu sareysa dalka waa wax aan isqaadan karin madaxweynaha mudxeleedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu eedeynayaa in 5 sano ee la soo dhaafay uu dhisay ciidan aan qaran ahayn aan dhaafin xarumahooda kana tirsaneen 4 qayb ee ciidanka loona adeegsado kaliya dana gaara lama yaqaano tirada rasmiga ah ee uu Farmaajo ku biiriyay ciidanka xooga dalka kuwaasi oo ahaa 27,000 markii uu Xasan Sheekh xilka ku wareejiyay khudbad socotay ku dhawaad 40 daqiiqo ayuu madaxweyne Farmaajo u jeediyay ciidanka xooga dalka
khudbadiisa waxa uu inteeda badan ku soo bandhigay ololihiisa doorashada iyo sheegashada in uu isaga dhisay ciidanka xooga dalka. ciidanka gorgor oo uu tababaro Turkiga iyo ciidanka danab oo uu Mareykanka tababaro ayuu madaxweyne Farmaajo ku faanaa in uu isaga dhisay. laakiin xaqiiqda ayaa ah in heshiiska tababaridda ciidanka gorgor uu dawladda Turkiga la saxiixay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, dhulka xiradana la bixiyay isla xilligii madaxweyne Xasan Sheekh, tababarkooduna bilowday isla xilligii Xasan Sheekh. kaliya madaxweyne Farmaajo waxa uu sii waday dadaalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, xitaa mushaarkooda waxa bixiya dawladda Turkiga. ma jirto mana jiri karto sabab uu Farmaajo iyo kooxdiisa ku sheegtaan inay ciidankan iyaga dhiseen. ciidanka kale ee commandoska danab iyana waxaa la aasaasay xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. xilligii madaxweyne Xasan Sheekhna waxaa loo dhammaystiray shuruucdii, hanaankii iyo heshiisyadii ka dhinnaa iyo in dawlad saaxiibnala ah loo helo si ay nooga caawiso dhismihiisa. waana la howlgeliyey oo Mareykanka ayaa heshiis lagula galay ilaa 5,000 oo commandos ah in uu Soomaaliya u tababaro. sidoo kale waxaa lagula heshiiyey in Mareykanku qalabeeyo si ay gacan xoogan ugu geystaan la dagaalanka argagixisada. waxaana la soo saaray guutooyin intii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ka ahaa dalka oo weliba howlgalo ka dhana Al-Shabaab ay qaadayeen. ma jiro ciidan rasmi ah oo uu dhisay madaxweyne Farmaajo marka laga reebo inuu waqti badan ku bixiyey. haddaba daawade, maxay kula tahay adiga? markasta nagala soco National TV waxaad heli doontaa warar sugan oo xaqiiqo ah. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa weli la awoodi la'yahay in lagu qanciyo inay qaataan shahaadada xildhibaannimada si loogu gudbo wejiga dhaarta ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. maamulka wuxuu ka cabanayaa xayiraad uu guddiga doorashada ee fiid ku sameeyey 3 ka mid ah kuraastii uu maamulkaasi soo gudbiyey natiijadooda. hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa dhawaan ku eedeeyay ra'iisul wasaare Rooble inuu isaga xayiraada mas'uul ka yahay, isagoo kursiga u raadinaya qof kooxdiisa ka tirsan. qofkaasi ayaa loo fahmay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo isagu raadinayay mid ka mid ah 3 kursi ee uu guddigu joojiyey. waxaa socday wadahadalo ay xildhibaano bilaabeen oo uu markii dambana ku soo biiray hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor. kooxda uu Qorqor hogaaminayay ayaa Baydhabo u tagay wadahadalo ay ku sheegeen xaldoon iyo in Koonfur Galbeed lagu qanciyo inay xildhibaanada soo fasaxdo. laakiin wadahadaladii waa dhicisoobeen oo sida muuqata dhaarta lagama soo gaarsiin karo xildhibaanada Koonfur Galbeed. kaliya 2 maalmood ayaana ka harsan. sida la xaqiijiyay Qorqor iyo kooxdii la socotay wax ogolaanshiyo ah kama haysan dhanka ra'iisul wasaare Rooble, iyadoo dhinaca Rooblena ay wax badan ku xiran yihiin. ra'iisul wasaaraha dhawaan mar uu la hadlay xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka wuxuu sheegay inuusan isaga dirsan kooxda Baydhabo aaday uuna saxaafadda ka arkay, laakiin uu wixii xal ah soo dhaweyn doono. kooxdii Baydhabo aaday waxaa lagu eedeeyay inay xaaladda uga sii dareen. isku aragti ma ahayn 6 xubnood ee Baydhabo tagtay. qaar waxay rabeen in Laftagareen lagala hadlo 3 kursi, qaarna waxay rabeen in 4 kursi oo uu mid ka Fahad ku jiro in isku xeer lagu dhaqo oo aan la kala qaadin, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed oo aan la hadalnay. hogaamiyaha Galmudug Axmed Qorqor weli wuxuu joogaa magaalada Baydhabo, halka xubnihii kale ay Muqdisho dib ugu soo laabteen. waxaa la sheegay in Laftagareen uu mar rabay in 2 kursi loo fasaxo, kursiga sareedana lagu laabto doorashadiisa, laakiin xubnihii xaldoonka u baxay ayaa qaarkood xaalka sii adkeeyey iyagoo shaqo leexsan u haya Fahad Yaasiin. waxayna Laftagareen ku qanciyeen inuu kuraasta isku kiis ka dhigo. xubnaha beesha caalamka waxay weli wadaan dadaalo ay rabaan in kuraastaasi lagu fasaxo, iyagoo cadaadis saaraya ra'iisul wasaare Rooble iyo guddiga doorashada ee fiid. laakiin ilo wareejo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay sheegeen inuusan Rooble ogoleyn in Qorqor uu dhibac siyaasadeed ka dhaxeelo kiiskan, kaasi oo dadka qaar ay ku eedeynayaan inuu yahay ninka xaaladda sii adkeeyey. sidaan xogta ku helnay Qorqor ayaa Laftagareen ku qanciyey in uusan ka tanaasulin mowqifkiisa uu xildhibaanada ku xayiran
ilaa laga fasaxo kursiga Fahad Yaasiin, wuxuuna muddooyinkii dambe Qoorqoor si rasmi ah uga shaqaynayay danaha Fahad Yaasiin. weli waxaa jira rajo waxaana socda dadaal loogu jiro in la helo xildhibaanada Koonfur Galbeed, laakiin waxaa niyad jab abuurtay in kooxdiisa Baydhabo isxilqaanka u aaday in maanta qaarkood lagu eedeynayo inay xaaladda sii fogeeyeen. dooda la xiriirta in lafta gareen 2 kursi loo fasaxo midna lagu laabto weli miiska ayay saaran tahay, lamana yaqaano sida ay markaasi u mir dhali karto. ugu dambeyn haddaan eegno guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal fiid ayaa maanta war cusub ka soo saaray munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka, taasi oo loo qorsheeyay 14 bishan aynu ku jirno ee Abriil. qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in dhaarinta ay dhacayso maalinta Khamiista ee soo socota, iyada oo lagu wargeliyay dhammaan xubnaha baarlamaanka. waxaana halkan idinku wargelinaynaa in maalinta Khamiista 14 Abriil ay tahay maalinta la qabanayo munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ayaa lagu yiri qoraalka guddiga. sidoo kale guddiga ayaa fariin culus u diray xildhibaanada dooran, wuxuuna ka dalbaday inay isugu yimaadaan hoolka teendhada Afisiyoni abaar 10 subaxnimo. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo aan weli xal loo helin tabashada Koonfur Galbeed oo gabi ahaan xiriirka u jirtay Ra'iisul Wasaare Roble. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena ee nabadgelyo.